xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabiley ayaa maanta shirshiraay oo ku qabtay xafiiskiisa ku soo bandhigay isla markaasina ku beeniyay warar ay qoreen warbaahinta qaar oo la xiriira arrimaha maamulka dawladda hoose degmada Gabiley iyo hadallo ka soo yeeray xisbiyada mucaaridka waxaana xogayaha dawladda hoose degmada Gabiley hadalladiisii kamid ahaa gudoomiyaha degmadu wuxuu ku tagay dalka Djibouti socdaal hawl caafimaad awgeed gudoomiyaha markii labaad ee uu tago magaalada Djibouti oo ka soo qaatay daawooyin hawl caafimaad awgeed ka bacdina loo qabtay muddada ku soo noqdo muddadii maayka loogu talagalay inuu ku soo noqdo dalka Djibouti hawsha caafimaad awgeed ayuu gudoomiyuhu ugu baxay una ku tagay marka ay hawshiisa caafimaad u dhamaatana hadii soo nabadgeliyaan leenahay anoo soo fududeeyay ayuu u soo noqon doonaa degmadiisa gudoomiyuhu safarka u baxay safar uu safar sharci ku baxay dadka meelaha propagandada iyo galiyeen arrimaha aan jirin wax jira ma useedadan la gelinayo wararka beenta ee waxba ka jirin waxa leeyahay iska ilaaliyada warkaas waa been sidoo kalena xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo weeriyaan gudoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha deegaanka degmada Gabiley xildhibaan cibaado maax cilmi ayaa iyaguna ka waramay adeegyo kala duwan oo waqtiga ugu dhacay xafiiska faayo dhowrka maanta ka gubay magaalada Gabiley waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 2019 dawladda hoose Gabiley sidii caadada u ahayd waxay maanta ku hawlan tahay sidii ay u kor ugu qaadi lahayd dhammaan faayo dhowrka iyo nadaafadda guud ee degmada Gabiley waxa maanta halkan ku gubaynaa alaab expire oo isugu jirta daawooyin sigaar sharaab daqiiq baasto iyo noocyo fara badan oo ay waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ay ka soo ururisay degmada Gabiley waxa maanta halkan lagu gubayaa bishii tahay 15 bishii December daawooyinkii iyo sharaabkii iyo sigaarkii iyo raashinkii laga soo guray dukaamada magaalada marka walaal waxaan idin leeyahay waxa oo dhacay dadkeena xasiinina waxana qurux badan shaygu intaanu dhicin in dadka uga faa'iideysan masaakiinta maanta 100 kartoon halka oo dawadii indhaha amba sigaara amba maxay ahayd sharaab ayaa buuxa waa Nimcaan Deeg Ibraahim TV-ga qaranka Gabiley.